الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha waan salaamayaa meel kastay joogaan allah idin barakeeyo camalkii cibaadadana allah inaga aqbalo waxaynu isu sheegaynana allah inagu anfaco ajrina allah inaga siiyo intaa kadib waxaan sii wadi doonaa insha allah inaan ka jawaabno su-aalihii aad soo qorteen su-aaluhu way badan yihin laakiin mar walba waxaan ku xisaabtamaynaa kuwa muhiimka ah ee dadkuna ka faa'iidaysan karo ama dhacaba inta badan su-aashan koobaad sakariya soo qoray hargeysu ka soo qoray jawaabteedu su-aashuna waxay u taallaa had iyo jeer bahalahan geymiska la ydhaa dhalinyarada laga kareeyo ee ay ciyaaraan kombyuutarka lacagta laga qaado ma saxbaa haddiise lacagtaasi aanay sax ahayn sideen uga takhalusaa wixii aan ururiyey markaynu soo ururino jawaabta waxyaabaha kombyuutarka lagu ciyaarayay geymiska qaarkood waa qamaar lacag baa lagu kala helaa taasi waa xaaraan kuwa kalena waa waqti lumis ee aan lacagta lagu kala helayn ama waxay kaa luminaysaa shaqadaadii diinta iyo shaqadii adduunyada iyo cibaadadii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii markaa mararka qaarkood ooba laga yaaba waxyaabaha daraadooda in xaaraan la noqoto qofka muslimka ahayna waktigiisu ma istaahilo in lagu ciyaaro laakiin waktigu waa qaali waana noloshii markaa dhalinyarada iyo inaan ambinin xaaraantana aan ka fogaano waqtilumiskana aan iska dayno dadka aad arkaysa adduunka dayax gacmeedka kiciye badiyo beriba quusay waktigaasi ka faa'iideen inagu aynu ku ciyaarayno markaa wixii qamaara ee aad ka heshay halkaa xaraama ee lacaga danaha guuda ummaddaad gelin doonto ama fuqarada aadka u baahane baktiya ayaad u diri ama wadooyinkii iyo dugsiyadii baad gelin mawlid jigjiguu ka soo qoray su-aashiisa waxa weeye xaasku ninkeeda ma siin kartaa sakada jawaabtu waxa weeye haa hadduu baahan yaho uu fuqarada ka mid yahay cabdillaahi ibnu mascuud xaaskiisii ayaa wax bixinaysay sadaqo iyo dahab iyo waxyaaba ay xidhnayd cabdillaahi baa markaa wuxuu yidhi anigii ciyaalka nasii waxaan filaya inaanay kugu baxayn bay ti haddii nebiga la ysula tegayna wuxuu yidhi cabdillaahi run buu sheegay waad siin kartaa marka sadaqadaasi hadday sunno ahayd sekaduna waa la mid bay leeyihin culimadu dhinac kale kolka laga eego sekada waxaanad siinayn qofka masaariiftiisu waajibka kugu tahay dee ruuxa dumarka ana inay ninkeeda masruufto waajibku maaha laakiin isaga ayay waajib ku tahay inuu xaaska masruufo marka ninku xaaskiisa sekada ma siin karo laakiin iyadu way siin kartaa khadar isagu su-aashiisu waxa uu ka hadlayaa dhaxal iyo kirooyin ka soo baxay dadka qaarkooda kiradii sii qaatay waxyaabahaasuu ka hadlaya laakiin waxaan sheegi karnaa uun kirada ka soo baxaysa hantida dhaxalka ah iyaduna waa dhaxal uun qofku markuu dhinto dadka qaarkood hadday guryaha ku sii jiraan oo ay sii kiraystaan waa lala xisaabtamayaa wadha waxaa lale intaasoo sannadood baad gurigii ku jirtay kiradiisuna waa intaasoo sannadood baad qaadanaysay kirada guriga xisaabteeduna waa intaasi xisaabi xilma leh marka haddii qofkii loo daayana waa sax haddii aan loo dayninna waa laga jari wixii kale intaasii dheeraadan culimadaad weydiin insha allah gabadha laylo la yidhaahdaa iyadu waxay ka soo qortay yurub waxay leedahay haddii waalidka xoolihii uu ka dhintay aan hore loo dhaxlin oo dhaxalkii la yska daaye muddo miyay dhibaato ku tahay waalidkii dhintay jawaabtu waxa weeye maya dhib kuma aha dhaxlayaashu markii uu waalidku dhintay hantidii iyagay ku wareegtay shuraakay ku yihiin hadday hore u qaybsanayaan iyo haddii kale waa hawl iyaga u taalla laakiin qofkii dhintay dhib kuma leh mar buu dhib ku leeyahy markaasi waxa weeye hadduu dardaarmu idhahdo yaan la qaybinayna sidaa ha isugu jirto dulmi wuu dardaarmay ama xoolahan meel xaaraana uu ka soo shaqeeyey wakhtiyadaa dhib buu ku mutaysanayaa dee wuu gafay laakiin markii hantidan ka tegay inay iyagu qaybsadaan si cadaalada u qaybsadaan iyagay la gudbantay isagu waxba dhib kuma qabo marka qaybtan hore qaybtan su-aalaha intaasaynu kusoo koobi lahayn insha allah shantaa su-aalood sida kooban aynu uga jawaabnay ilaahayna ha inagu anfaco
khayrkana hayna waafajiyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.